السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبي وناسة دمان وقلها يدير قربين السياسة يفرقين تعريمها الصومالي عاو سنين بيش أكتوبر نايت هاي اللي بيطبعا سنة كلابكم يشانتون ومالي تاريخ قارة أولى ومدى الصومالية ذا وحا فرحاد النوع إنو عاو قلها مرتي إنو كل هاي مدحوينها دولة الفدرال كاي الصومالية مدن حسن الشيخ محمود مدن مدحوين مركو هورا قلها يدير كسو دو أنا قو مقعاي قد هاي عبد الرشيد قلو عمر سويال أيانا كوري صندوق وما تنتهي سويال inta aadan madaxweyne marka hore aan ku weydiin xaaladda dalka maanta waa golaha ay dheer martiin ugu tahay ummadda Soomaaliyeed waxa u dabaaldegaysaa 61dii guuradeedii ka soo wareegtay maalintii ugu horeysay calan Soomaaliyeed la taago maxay tahay dareenka aad madaxweyne caawana la wadaagtay bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sida uu sheegay su'aal maanta xawaaye 61 guuradii maalintii calanka Soomaaliyeed la asteeyay oo la sameeyay maanta dalka dhan waa looga dabaaldegay gaar ahaan shacabka runtii aniga sidaan u arkay calanka iyo muhiimadda uu leeyahay tahay waa astaan dadka Soomaalida oo macnaha ku abtirsada qowmiyadda Soomaalida meel kasto ay joogaanna markii horena la dhisay la dhisayna loo sameeyay qaabkii loo sameeyay ka turjumaya dadka Soomaaliyeed meel kasto ay caalamka kaga nool yihiin gaar ahaan gobolkan geeska Afrika marka maanta markaan hadda dadka mataal aan u soo qaaday aan ku celiyo oo ahayday anagu waxaan ka soo jeednaa dhaqanka reer guuraaguna geela sumadda waxay ugu dhigtaan in lagu aqoonsado sumaddu kama turjunto hasha geela in uu hebel nin la yiraahdo oo leeyahay kama turjunto laakiin muxuu ahaay waxay ka turjuntaa hashaasi inay reer hebel inay leeyihiin ay ka turjuntaa sumadda ku taalaay marka xala sida dadkaasi ay u sameysteen sumadda u gaarka reerka meel wada degan dhiigga maxaan ku raayay dhaqashadu ay ka baxayso ayaa calankuna wuxuu leeyahay astaan annaga dhan naga dhaxayso qof gaar u la ma jirto gobol gaar u la ma jiro maxaan ku yiraahday marka la arkaa wuxuu ka turjumayaa Soomaali qofka ah dad badan oo adduunyada noo midab noo muuqaal eega jira laakiin markay calanka Soomaalidu qof wato waad ku leexanaysaa oo waa astaan aad ku aqoonsato marka kale waa aabayaasheenii hore ee dawladnimadana calanka ku sameeyay kuwii u gabiyay kuwii u heesay kuwii u duceeyay intaba wanaag uu leeyahay awgood ayay u yeeleen kuwa kalena naftooda qaaliga ah oo wixii ugu micno badnaay oo qof bini aadan oo bixiyo ay ahayd ayay u bixiyeen calanka awgi marka calanka noocaas oo qiimaha saas ku fadhiya ayaa astaanta dalka marka anigu waxaan arkaa waxay tahay jiritaanka ummadda Soomaalinimada qarannimada waxa aan kaga duwanahay adduunka oo aan anagu sunahay ayuu u taagan yahay calan wax kasta uu ka qiimo badan yahay wax kasta oo jiraahi inaan ka sara marsiino oo aan maxaan ku qaaday misaalka qofka naftiisa u bixiyo qiimaha uu leeyahay inuu dib nolol lahaado weeye bariyada boo dhaxdaaneed waxoogaa waxaan soo galgalay maxaan ku yiraahday waa laga mashquulay laakiin hadda xilli waxay joogtaa loo soo wada jeestay magaalada Muqdisho iyo dalka Soomaaliya kaliya maanta calanka kama taagna wuxuu ka taagan yahay caalamka oo dhan 40 meeyo safaaradood aan caalamka kulan ka taagan yahay hay'adaha caalamka oo memberka ka nahay oo dhan ayuu ka taagan yahay oo muddo gaban oo dhaweeyay oo muddo ka marnay maanta laakiin oo dib looga wada taagay astaanta noocaas weeye calanku marka micnahaas ayuu ummadda Soomaaliyeed u leeyahay aniguna micnahaas aan ku qadarinayaa dadkana aan rabaa in ay igu raacaan iyo la qaataan nimanka calanku noo leeyahay aad baad u maastay madaxweyne markaan dib u noqdo xafladii maanta magaalada Muqdisho oo hadalka ka jeedisay ayaa waxa kamid ahayd walwal ku saabsan in dad qaarkii ay sheegeen calanka wax laga bedelayo adiguna aad halka ka hadashay maxay tahay walwalka maartay ama arintaasi ay keentay ama in laga hadlo in calanka Soomaaliya la bedelayo keenay والله سؤال وحي كسر سنتها هل أصل كي والكاس وكي أنا واحد شيء كرر الله إذا قارن عن عصر كوي لغاتنا تكنولوجيا من عصر الجيرة وأرن جريء سوشيال ميديا أو إنترنت مع كذا فيسبوك يدا يتويتر في مرة برا الغطاء
taallo oo laleeyahay qaarkood calankiiba ay soo dhigeen oo barmadow sida barta gudida calanka calanka dhagax uga taallo kale xidibti meesheedii barmadow laga dhigay qaar bilaa laga dhigay dhahay qaar xagga laga dhigay dhahay sheekadaasi meel ay ka jirto iyo mar la isku soo qaaday iyo mara muxuu ahay anagu aan ognahay meel ay ka dhacday midna ma jirto marka marin habaabin ummadda la marin habaabinayo oo maxaan ku raadayay la mashquulinayo oo waxyaabo fiican iyo afkaar fiican intii ay ku mashquuli lahaayeen waxyaabo kale dib badan oo yani distraction loogu sameynayo oo wadooyinka wanaagsan looga weecinayo inay tahay umaan u aragnay taasaan marka ka jawaabayay calanku xasan sheekh iskama laha xukuumad maanta joogta ma laha ummadda soomaaliyeed lama bedeli karo wax laguma dari karo wax lagama dhimi karo waa mara maalina la sameeyay waana la wada aqbalay marka yani marin habaabistaas ummadda la marin habaabinayo ayaa ugu kaliftay arrinta maanta inaan soo qaado saas u cadeeyo aad baad u mahadsan tahay madaxweyne bal marka hore waxaad nooga warantaa xaaladda dalka bal warbixin kuban dadka Soomaaliyeed ee golaha ku jira oo ku dhageysanaya iyo kuwa ku dhageysan doonaba warbixinta kale ka dhageysan doona bal warbixin kooban naga sii xaaladda dalka madaxweyne adigu mahadsan xaaladda dalka anigu waxaan maantana waan qodobadii ku jirtay cid dhageysatay waxa weeye dalkan meel yimiday safar ku jira meel aad iyo aad u dhib badan ayuu ka soo tagay dhibaatana gaartay burburana gaaray burburkaani ma ka hadlayo macna weyn iguma fadhiyo midka physicalka ee daaraha naga burburay iyo buundooyinka naga gubtay iyo maxaan ku raadayay wadooyinka maxaan ku raadayay dayactir la-aan u baaba'ay qaabkii waa naga halaabay dekadaha naga cararray waxaa infrastructure naga baaba'ay ka hadlimaayo burburka ugu weyn ee nagaaray waa midka midkamaceyna gaaray oo yani duntii dalkeena ay ka sameynayeen ayay afagaraysay arrintan oo ahay burburka ee dalka ka dhacaya sidaas kala aamin baxa ummadda dhexdeeda ka yimiday kiiraanyada waxa taroomaha la yiraahdo ee ummadda dhexdeeda ka jirta kala aamin baxa ummaddu ay ayaduna kala aamin dhexdeeda dawladnimadina ay ka aamin baxday laana dawladdu dadweysay oo dhibka iyo cadaadiska iyo waxyaabaha qaar laga sheeganayay dawlad kasta oo timaaday ninkii indhaha beeray sheekadii ahayd ninbaa wixii ugu dambeeyay arka ayaa bakayla ahayd markuu indha beelayay marka wax kasta loo sheegay bakayla sidoo ka yahay marka hadii loo sheegay bakayla sidoo ka yiraahdo haatan dadkii marka dawlad loo sheegay dawladii ka caasiday ka tahay yaa dad la xirxirayo iyo baraadi duminayo iyo dad maxaan ku raadayay laandadayo iyo kuwa maxaan ku raadayay diinka laga faragelinayo oo masaajid loogu galayo iyo kuwa maxaan ku raadayay extrajudicial activities oo aydan maxkamad la geeyay waxaas dadka ku wada taagan marka warbalaayadu ama dadku ay dareemayaan dawlad la'aantu inay dib tahay oo ay rabaan in dawlad dalku yeesho haddana taas marka meeshii aan ka dhaadhicin leh oo dawladu dhan taasi ma aha way naga xumaatay taasi bari hore way noo fiicnay laakiin way naga xumaatay mid hadda waan samaysan karnaa u taagana sida halkii laga dhigay ayaa dadkii askaartii hore ee haraadiga ahaa iyo kuwa qadiimka ah dawladda laga cabsanayo oo maxaan ku raadin dibka badan ya afkaaraheedii wixii haddana dadkii dawladda ka tirsan qaarkood maanta ay ku faanayaan waad arkaysaa marka waxa weeye dalkood meeshaas uu ka yimid dadkeenu kala aamin bax badan bax yaalo dawladdan way ka aamin baxsan yihiin mas'alada annaga noo taalo waxay tahay sidii dadkeena dhexdeena aamin iyo isku kalsooni looga abuuri lahaa waxa afgariso trust looga dhisi lahaa dadku aamin waxa dawladdu si aamin ugu qabilaan ugu kalsoonaan lahayn loo dhisi lahaa hawshaas marka hawl aad iyo aad u dheer waayo hawl beriga laba ku imaanaysa hawl wacyigelin u baahan waa iyo hawl mashhad yani wax la arko oo muuqdo u baahan waayo ay dadku arko marka institutionkii iyo setup-ka waxaa lagu sameyn lahaa nooma jiraan dawlad la-aan ma samayn karno dawladdiina kalsooni xumo awgeed ma dhisi karno labada marka ironiga meesha ka jira waa intaas dawladdu waxay u baahan tahay dadka inta isku kalsoonaadaan is-aaminaan nidaamka aaminaan madaxdooda aaminaan institutionskooda aaminaan dawladnimadii ay aaminaan oo muxuu ahay saa u dhisaan dhinaca kalena waxaa taalla dad aan ayaga kala aamin baxsanin wax misla aamini karaana dhinaca kale taallaa marka caqabada meesha taallaahay waa caqabadaas aada u ballaaran wakti dheeran ku daaweyne ayay u baahan tahay wadadii lagu daaweyn lahaa marka yaa isbaarooyin badan loo dhiganayaayo oo muxuu ahay mid xanuun qaba oo tiiraanyadaas qaba oo maxaa xusuusi murugada lahayd wixii lasoo dhaafo dhacay mar walba xusuusanaya caqabadu ku yahay mid siyaasi ah oo sidaas u arkaya in uu taageero ku helay caqabadu ku yahay waxaasoo dhan ma isbaad marka dalku meeshaas uu ka yimid
maanta wuxuu yimiday wixii wax ugu fiicnaa ma haysanaa waxbaan isku raacsannahay baarlamaanka federaalka oo samaysan ayaan isku raacsannahay waxaan isku raacsannahay inaan muxuu ahaa shuruucdii dalka dib u habeynaa isku raacsannahay inaan dawlad inta samaysano teeram ay yeelato teeramkeeda hadduu dhammaado haddana aan hore usii soconin dawladdii haddana ahmid kale ama kuwa jooga hala siiyo ama kuwa cusub la keenayaan isku raacsannahay waxaan maanta u dagaalamayna u taaganahay waxay tahay waryaan waqtigana laga cunin waryaan waqtigana looga beerdareyna waxaan macno lahayn war aan horay u soconno war aan maxaan ku raadaaye waxa aan qaban karna maanta waxa suurtagalka ah aan qabanno waxa biri suurtagalka ayaanan maanta isku mashquulin marka dalku meeshuu ka yimi waa meeshaas dawladda maanta dalku wuxuu leeyahay hay-ado dawlade waa weak waa daciif waa dhikra Soomaaliya muddo 15 sano xilliga carta laga soo bilaabo ilaa 2012 oo 12 sano dalka Soomaaliya sadiisa waxa looga hadli jiray magaalada Muqdisho oo kaliya iyo dabcan dawladda Puntland oo jirtay ayadana oo meel siyaasadda Puntland iyo shacbiga deegaankaas degan danihiisa iyo amnigiisa iyo horumarkiisa meel looga hadlay jirtay way ahayd laakiin Soomaaliya inta ka soo hartay codmaraysa siyaasadooda in Muqdisho kaliya looga hadli jiray oo dadka dalkaas ballaaran degan oo dhan kala aanay lahayn nidaamkii federaalka ahaa oo lagu soo heshiiyay muddadaasna wax badan aanay ka socon waayeen nidaamka federaalka waa garanaysaan dalkan 1960 ilaa 90 dawladdu lahaa 9 sano oo dawlad rayida ahayd iyo 22 sano dawladda militariga labada system oo maamul dhexe oo highly centralized ah oo ka taliya ayay ahayd sharci kasta oo dalka loo sameeyo 10 sano oo maxmiyada ay iyo 30 sano dawladda ahayn wuxuu ka turjumayaa dawladda dhexe awood ay dawladda dhexe xarunta ay taalo oo macalinka loo bedelayo koonarka Soomaaliya xamar laga bedelayo oo askariga booliska xamar laga bedelayo oo ninka maxaan ku raadayay dawladda hoose xamar laga bedelayo ayaan soo marnay inta badan waqtiga nidaamkii aan dhahno waa ka guureynaa waxaan u guureynaa nidaam xukunka uu baahsan yahay deegaanada iyo maxaan ku raadayay taladu ay halkaa jirto oo dadka amuurahooda ay uga tashadaan deegaanadooda arrintaasi marka guuridaas aan guureyn oo nidaamka aan ka guureynaa sharciyada u baahan tahay haddaanay sharciyad helin ma noqonayso wax oo shaqaynaya ama waaraya ama ummadda wax u tarayo confusion hor la jaawareed iyo colaad hor la inay keento ayaa laga yaabaa fursadda dawladdan taxaddiga ama challenge ku yimid wuxuu ahaa in ay xukunkii baahisana waa rabaa sharciyadina way ka maqan tahay dadkeenina baahinta xukunka iyo talada baahinteeda sida ay u rabaan fursad oo dheer oo inta lagu dhiso nidaamkii sharciga ahaa iyo la sameeyay kadibna xukunka ilaahay way sugi waayeen challenge-ga dawladdeena qabsaday waxay tahay marka in ay dadkiina si baahidoodii ka jawaabto oo degdeg u rabnaa taladeena hana la siiyo dadkii ay leeyihiin sharciyadiina ay maqan tahay taladii lagu wadaajira lagu qaybilaa annaga aqoonta ugu badan naga hortay sidaas ay ahayd la dheer ka bacdi waxaan garanay dadka in la gaarsiiyo xukunkii si ku meel gaar ah fursad loo diiraa waa kana tashada isku imaada wax qabsada waxaysta laakiin nidaamka waa in soo socda maalintuu yimaado ayaa la isku cabiri doonaa gudaha iyo dibadda iyo waxa u dhaxeeyo maamulkaas deegaanka iyo midka quraay waxa u dhaxeeya awoodaha loo qaybinayo waxaas dhan marka anagu waxaan ku qudanahay midaas maanta talada gobolada looga hadlaa meel walba ayaa looga hadlaa baydhaba looga hadlaa duusamareeb ama cadaada looga hadlaa sidii horeba looga hadli jiray garowga looga hadlaa maanta yacni muqdisho loogama arrimiyo maxaan ku raabay mufaakismaayo iskuulka laga furayo iyo xarunta caafimaad ee laga sameynayo iyo askariga booliska ee laga qorayo dadka amnigiisa sugaya muqdisho lagama go'aamiyo kismaayo laga go'aamiya iyo deegaanadaas ay kismaayo simaadoodan sidoo kale baydhaba sidoo kale maxaan ku raacay cadaado sidoo kale awal buu ahaydayna muxuu ahaa Puntland marka halkan waxaan ku haynaa inaan sharciyadaas dhexe sameyno oo maamulada iyo dawladda dhexe sida isla jaan qaadi lahaayeen oo ay u wada shaqeyn lahaayeen oo dad loogu wada adeegi lahaay heer qaran iyo heer muxuu ahaay deegaanba maxaan rabaa waxaan picturekaas sawirkaas waxaan ka bixinayaa wuxuu yahay taxaddiga ama challenge-ga dawladda sida Soomaaliya haysta maanta annaguna meeshaasaan soo gaarnay waxaan rabnaa waxay tahay inaan marka maadaama sharciyadii iyo shuruucdii loo baahnaa dhan naga maqan yihiin inaan helno
madal iyo madallo lagu tashado oo dadku ay ku tashadaan oo ay wax ugu fiican waxaa laga hadlayaa sharciga doorashooyinka waxaa laga hadlayaa dastuurka waxaa laga hadlayaa haddii sharciga doorashooyinka aanu noo dhammaystirnayn waqtigeena nagu dhacay sidee yeelnaa 2016 see wax yeelna waxaa laga hadlayaa awoodaha sidee loo kala qaadaa waxaa laga hadlayaa maamulada jira sidee ayuu calaaqaadkooda noqon waxaa laga hadlayaa institutionka deegaanka iyo constitution qaranka see u wada shaqeynayaan constitutionada deegaanka lafteeda sidee u lahaanayaan oo aan isaga hor imaanaynin hawshan hoo aad iyo aad oo muddo aad iyo aad u dheer waqti dheer u baahan dadaal badan iyo urursanaan badan iyo diiradda isla saar u baahan waaye laakiin annagu waan ku mashquulsan waxay tahay aasaaskii iyo rukunadii waxaa aan u dhigalayn barnaamij cid joogto dowladnimada ay si shaqeyn leh oo sidii waqti dheer ay qaadanaysaa waxal iyo laba teer ku dhamaan doona noqon doonto laakiin bilow wanaagsan ayuuna maadaama bal waxaan nimay magaalada muqdisho aniga maalintan xafiiska imaanayay waxaa loo dabaaldegayay ciidankeena Daniel degmada Daniel oo magaalada muqdisho ka xagaa inuu dhaafay oo gabdhuhuna ay biyaha iyo maxaan ku yiraahdaa ay ka darsideen caanaha ay lahaayeen Daniel aan shabaab si dhaafsiin maantana waxaa laga hadlayaa maxaan ku yiraahdaa goboladii dalka oo dhan oo boqots yar ku soo haray sidaan u shaqeeyay looga jeedo marka muxuu ahaa su'aal dalku halkaas uu ka yimiday jihadaas uu socdaa dadaalada socda waa kuwa caqabadaha faraha badan ee yaalay oo inta ay kala ka badan marka sidaas aan ku soo koobi lahaa xaaladdu ma joogto meesha aan u socono okay aad u maasantahay madaxweyne balse dastuurku wuxuu idin farayay markii idinka xukuumadda ugu horeysa dalka la dhaariyo 60 ilaa 90 cisho gudahood in lagu soo dhiso gudiyada qaranka oo midalan ba kuwa xuduudaha kuwa doorashada maxkamadii sare هذا محكمة الدستوري قاعد يقول دي اللي لمت قاعد محيطها سببت سوق جالس مدحوينه إن إذا كو وقتي هل سنة كمارك أي كاسية إن هذا عمل الله غلب قاطع ما قيفتودنا إيش اثنين وصحوي وسؤال ضبط حقيقة الدستوري وحواي ورون دستور كوادي أصلا يعني الدستور كده قال وعديل والإحدى المعلومات سبب المعلومات سنة صوت قلقوا معي إن لو قدسه وحني وحقاد مروا البصامين Soomaaliya wax kasta oo la sameeyay sharci kasta oo la sameeyay wax kasta oo aan siyaasad ahayn hub caafimaad halka laga dhisay hadii ama la dugsi halka laga furaya Soomaaliya waa siyaasad waa in laga nugusheed jiraa oo laga xaajooda oo dadka qaarkii laga qanciyaa dadka qaarkiina lagu qanciyaa marka amuuraha siyaasadda oo dhan wax talaab kasta dawladda qaadaysaa 4.5 dhinacu kaaga degan yahay maxaa kala qolooyin kale oo reactionary forces kale badan inay kaaga degan capacity darra anagu aan qabno adeena ay qabaan iyo dadkeen dhinac kale inay degan dadaal xumo iyo rabitaan la'aan ogaal la'aan ma ahayn arrimaha capacity la xiriira u badan iyo arrimaha caqabadaha siyaasadeed oo jiro baa dib u dhac keenay hal misaal haddaan ku soo siiyo مثلا guddiga adeega garsoorka ee madaxa banaan asigana gudiyada oo constitutionalka ee adeega garsoorka madaxa banaanidiisa xaqiijinay ayaa la sheegay guddigaas adeega garsoorka sharciga la sameeyay xukuumaddu soo sameysay golaha wasiirada ansixiyay baarlamaankii la geeyay baarlamaanku ka dooday dib xukuumaddu loogu soo celiyay mar kale way saxday waa lagu celiyay waa la soo ansixiyay xukuumadda dib loogu soo celiyay misaal aan soo qaadanaya xubnihii la soo barboosay soo magacaabay sessionka hadda baarlamaanka fasaxa uu ku jira oo dhan xubnihii la soo barboosay ee cali iyo jaamac iyo caashi iyo maryan ahaa sidii sharciga uu tilmaamay lagu soo xulay lagu keenay baarlamaanka horyaalay ilaa hadda in loo oday u baahan yahay xubnaha waa kuwaas la yiraahdo hal loo oday la gacanta loo taago weli waxa la haystaa iska daba jiita iyo kan ma yahay kii iyo kaas ma aha iyo reer hebel ka maqan iyo reer hebel maxaa taan loo soo yani waxyaabo iska dhib badan aan qabnaa baarlamaanka horyaalay marka waxna ayda iyo dadaal xumi iyo rabitaan la'aan midna mid laakiin xaqaa'iqa dhulka yaala ee aan ku shaqeynayna ayaa sida u yaal marna capacity xumaan haysto wixii ma sameyn karin marka si uu naaba qalqaloocnaadeen aan si uu soo sameynana haddana mas'aladaas kale oo siyaasigan oo xildhibaan u taagan yahay oo maxaan ku wasiir u taagan yahay oo qof waliba ay u taagan tahay
yaa hortaalo oo ayagana waqti badan ku dhumay waqtigu meelahaasa inta badan uu nooga dhumay marna rabitaan la-aan iyo ogaal la-aan iyo marna ma ay jirin dabcan waa qirayaa 30 maalmood iyo 60 maalmood laguma samayn karin laana processka hadda ku tilmaamay ayaa sharci kasta oo la samaynayaa qaabka sharci dejintu inuu qaabaysan tahay waa sida wasaaradda inay soo propose gareyso kabinetka keento ka gaddo kabinetku wada ogolaado baarlamaanka loo gudbiyo baarlamaanku akhriska koowaad akhriska labaad akhriska saddexaad uu ka sameeyo soo ogolaado loo odeeyo kadib la soo celiyo xeer madaxweyne lagu soo saaro waayo processka marar badan kabinetka wasaaradda ku celinayo soo saxdayo mar kale baarlamaanka uu kabinetka ku soo celinayo oo soo saxdayo mar ana celinayo dhahayo waxay ka soo horjeedaan ama qaanuun kale lidii ku yimid kasoo horjeedaan dalka ka jira ama maslaxadda caamka inta uga dhimeen inkastoo anigu intii sharci la sameynaya hal sharciyaa jiray oon baarlamaanka aan ku celiyey midda kale weligii kumaana celin ayagoo marka qaarkood daldalool uu leeyahay xataa baraa la sixi doonaa intaan dhahno si uu u samaysmo oo wax la saxa ay u samaysmaanan usii daynayna anagoo garanayno wax perfect ah inaan imaan karin marka duruufahana haysta haysoyaal waa kuwaasa rabitaan la-aan iyo maxaan ku dhaha dadaalyari inta badanaahayna tabar unbaa meesha madaxweyne aad umahadsan tahay bal dhinaca ammaanka oo aad ka sheekaysay oo aad runtii kolleyn waxna aad qabateen ayaa haddana waxaa jira in dagaal la galo oo dagaalkii haddana lagu guulaysto haddana ciidamadii ay dib uga soo baxaan mararka qaarkoodna waxaa dhacda cabashooyin ku saabsan mushaar la-aan ay ciidamadu ay ka cawdaan iyo weliba dadka deegaamada ay ciidamadaasi joogaan oo iyana ka cawda jidgooyooyin ay ciidamadu ay dhigtaan arrimahaas maxaa madaxweyne uga qaban weyn waa run ma ileen waa run waa ciladahaasi waa jiraan horta dee soomaaliya dowladda maanta ka jirtaay soomaaliya joogta in ay dhaqaalo ku filan oo 24 kun oo ciidanana lagu maintain-gareeyo ilaa 6 kun oo dowladda socdo civil services ana lagu maintain-gareeyo sourciga dowladda incomekeeda dhinacaad weli uu ku kooban yahay dekada muqdisho iyo suuqyada waaweyn muqdisho ku yaalo iyo dhowr maxaan ku yidhahdaa albaab oo muqdisho laga soo gala oo ku kooban yahay dakhliga dowladda gobolada iyo meelaha kaloo dakhliga la ama dekadaha leh dowladdan dhexe waxba ugama yimaadaan marka inkasta oo annaga markaan nimaday maqaan 700 yani 600 jeer dakhliga dowladda uu kor u kacay oo 2 milyan oo ka yar aan nimaday haatan oo 12 milyan iyo jan uu marayo haddana baahidana way la kordhaysay xakameyntii aan xakameynayna intii waxyaabo badan loo baahno inaan diijis badan aan ku sameynaayo kuma aanan sameyn ama waan ku sameyn kari weynay way jirtaa qaalab daridaa jirta ayaa ciidamadu 47% ka mid ah budgetkeena 47% ciidamada ayuu ku qoran yahay haddana dakhli yarida oo waqti oo sax aan wada imaanaynin mar aan imaanaynin kayd aanan qabin ayaa keenaysa in ay ciidamadeenu ay dib u dhacaan mushaaraadkoodii lagama saacido mushaaraadkooda ka saacidaana la yiri laakiin weligiina lagama saacidin dowladda miisaaniyadeeda cid kabta oo $100 ku darto oo ajnabi ah ilaa iyo hadda ma jirto dowladdan federaalka waxay ku taagan tahay dakhligaas aan saas kugu tilmaamo oo magaalada muqdisho iyo laga ka yimaado oo laga ururiyo ay ku taagan tahay dekada iyo magaalada suuqyadeeda budget support lama siiyo ciidamada mushaarkooda ka qabanayna la yiraahdaa annaga toos u siinayna la yiraahdaa waa uu isku dhib qabnaa amuuro badan soo marka ciidamada dhaqaale darri dowladda haysta ugu wacan inaan muhiimad lahayn ma aha priority-ga koobaad budgetkeena 4 priority isku xigto leeyahay kan koobaad waa xawaaye ciidamada kan labaad waxa waaye maxaan ku yiraahdaa dowladda waxaan leeyahay baarlamaanka iyo xukuumadda muxuu ahaay qarashaadkooda kan kale waxa waaye mushaarka shaqaalaha rayidka saddexaad kan afraadna waa running costiga wasaaradu ay leeyihiin marka priority koobaad ku jira ciidanka raashinkiisa dowladdu inay maintain gareyso iyo mushaarka inay bixiso waa soo keenaysa raashinka maintain gareysa mushaarka dib u dhaca jiro laakiin bilkasta mushaar waa la bixiyaa laakiin gaad ayaan dhawaadacayo dhowr bilood isku xigeed ayaa soo kabidiisa ay socotaa dhinaca kale oo aad sheegtay oo ciidamadu inay meel ka soo baxaan dalku waa ballaaran yahay xuduudihii frontiga waa ku ballaartay annaga keligeedna xataa amisoontu
marar badan meelihii ay hore u joogtay way kasoo dib u gurashay kasoo sameeyaan ciidamadeennuna waa un intaas oo kale markii la ogaado dhulka ku fogaado awoodda iyo facility-ga haystaan uu yaraado meelo qaarkood dawladda iyo taliskaa kasoo bixin meelo qaarkoodna dee markii bishaar maan qaadan bishaar maan qaadan way jirtaa oo fowdo ahaan looga soo baxa disciblinkana waa iska garan kartaa wiilasha dee ciidamadeenu ay ka koobmaan iyo sida ay yihiin marka waa run amuurahaasi way jiraan laakiin de waan la tacaalaynaa intaa saraakiil cusub iyo hoggaan cusub iyo ilaa hoosoo taliska sii bedelna iyo inaan tababar dadka u dagan saraakiishii aan dhisno oo aan tababarno oo aan dibadda u daga gudaha ku tababarno waan ku jirnaa dadaalkeedii maalin walbana jiil cusub oo ciidamada ah ayaa kusoo biira ciidanka waan rajaynaynaa in waxyaabahaas mustaqbalka dhow ay dhammaan doonaan laakiin culeysyo jira weeye waa run aad baad umahadsan tahay madaxweyne caqabado badan baa kasoo sheekeysay oo dawladda iyo sidii ay horumar u gaari lahayd ay ishortaageen oo ay kamid tahay kalsooni darrada bulshada weli ku dhex jira ma kula tahay marka in loo baahan yahay dib u heshiisiin rasmi ah oo ay dadka Soomaaliyeed dhex marta in loo qabto waxaan ognahay qaxooti badan ay weli dibadda joogaan oo weliba dalalka dariska ay ku jiraan oo tan iyo 91 soo baxeen ay weli dibadda joogaan in weli dalka xoogaa moodo in kalsoonida ay jirto marka si kalsooni Soomaaliyeed ay u soo noqoto ma kula tahay marka in loo baahan yahay dib u heshiisiin rasmi ah oo dalka dhex mara ama dadka Soomaaliyeed su-aashaas jawaabteeda waa loo baahan yahay laakiin waxaan rabaa inaan ku daro dib u heshiisiintu idantii hal mar dhacda maaha hal mar inta la isku yimaado waa la heshiiyey inta la yiraahdo lagu kala tago ma aha dib u heshiisiintu waa hawl socoto oo process ah weeye mana dawlad la-aanteedna ma socon karto dib u heshiisiin markii dawlad awood leh oo wixii lagu heshiiyey midka fawdada wada carqaladaynaya ay ka qaban karta ama dawladda ha ahaata ama dawlad deegaan ha ahaatee oo xoogan oo dalkoo dhan ku daada gacantana ku haysa markay jirto way sahlan tahay laakiin haddana lama caajiso caway xasab dib u heshiisiin waa socotaa anigu si gaar ah dadka dib u heshiisiinta localka oo hoose oo deegaanada ah muddo dheer kasoo shaqeynaya ayaan ahay waayo aragnimo badanna waan u leeyahay laakiin waayo aragnimada aan u leeyahay waxay tusaysaa dawlad la-aan iyo nidaam la-aan inaan dib u heshiisiintu dhici karin lafteeda oo markii dib u heshiisiin dhacdo la heshiiyo mid qaswada ah ayaa inta baxa ayaa wax qaribayo hebel oo qaswada ah oo dambiile ah oo wax qariba ma noqonayo reer hebel wax ka hadlaya ama reer hebel wax qariba noqonaya halkaas wuxuu ka fasaaday inta badan marka waxaan u baahanahay dib u heshiisiintu waa dhab laakiin in la institutionalize gareeyo oo la dhiso oo la bilaabo oo ay socoto dawladdu heer federaal iyo heer deegaan intabana ay muxuu ahay priority inta ka dhigato ay wax raacdo waa aad iyo aad waa arrin loo baahan yahay weli inaan structure garayna way naga dhiman tahay laakiin waa loo baahan yahay waxayna socon doontaa dib u heshiisiintaasi muddo aad iyo aad u dheeray dalka ka socon doontaa oo adiga sheegay qaxootiga maqan ee dalalka dariska iyo meelo kasii fog jira jiilal hal jiil maha laba jiil iyo sii maraya wiilkii cararay asoo dhalinyaro ah ayaa maanta awow ah oo caruurtii kowga u ahaa ay joogaan marka jiilashaasoo dhan in Soomaaliya la fahamsiiyo dhaqankii iyo wanaagii iyo dawladnimadii iyo wixii laysu ahaa la fahamsiiyo colaadii dhacday iyo tiiraanyadii dhacday laga tiro waqti dheeray u baahan tahay waana loo baahan yahay waana arrin muhiimadeeda la weeye adoo maanta madaxweyne arrinta dib ugu soo noqono doorashooyinka sida lagu ballamay waxay ahayd xukuumadda hadda aad madaxda ka tahay 2016 inay dalka gaarsiiso in qof waliba uu codkiisa ku doorto madaxdiisa laakiin ma ay dhicin waxaa jira barnaamijka higsiga 2016 oo ku saabsan in maamul goboleedyada xukuumadda iyadoo baarlamaanka ama haatee in la rabo in aragti midaysan laga yeesho oo aad tirar u ballansantiin maxay tahay rajada aad ka qabto in Soomaalida oo si midaysan isku aragti ka ah in lagu gaari karo 2016 in doorasho ay ka dhacdo Soomaaliya siyara horta sunnada nolosha inaan fahmno waaye Soomaalida 12 milyan Soomaalida oo hal shay ku midaysan wiligeed lama gaaray lama arkayo dadkan waxa ay ku midoobi karaan waxay tahay markii qaanuun iyo nidaam iyo dastuur inta samaystaan ay ugu codeeyaan ay dhaan raali ah ay badanku
dastuurta waa garanaysaa marka loo codayo boqolkiiba hore dastuurkaas lagu qasixiya ama loo lama yiraahdo waa arkaysaa boqolkiiba marka hore la yiraahdo meequu dastuurku ansaxaya boqolkiiba 55 ku ansaxaya hadii la yiraahdo boqolkiiba laakiin boqolkiiba 45 dastuurkaas diidanay haddana the law of the land dastuurka dalku noqdaayo muxuu ahay qofan marka dadku waxay ku midoobi karaan oo xadidi kara waxay tahay marka ay leeyihiin qaanuunkaasaan leenahay hore adii qaanuunka khilaafin qofka marka la dhihi karo annagu hadda the environment aan ku shaqaynaynaa wuxuu yahay environment aan lasbihi karin weli taas ay ka maqan tahay waa sababta aan u furnay madasha wada tashiga 2016 laga wada tashiga caawa aan kula hadlayno muqdisho joognaa waxaa jooga wufuud ka kala timiday dowladaha deegaanka dowlad goboleedyada jira ka timiday dowladda federaalkana ay ka socota oo bilowday oo fadhido oo maanta fadhiday oo shala fadhido oo caawa fadhido oo lagu heshiisay loo qaanjin lahaa madashooda tashiga u shaqo gelin lahayd u socon lahayd dadkii isaga yimiday oo maamul goboleedyada ka mid ah dowladda federaalka wixii isku yimid hadda farsamo ahaan dadkii technicianska ayaa fadhiyo oo wixii jiheynayo oo waxaynayo marka taladaasi meel oo wanaagsan lageeyay dadka waxa ugu wanaagsan xadiidkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam ahay qofka qadarkiisa yaqaan ayaa dadka ugu khayr badan annagu maanta awooddeena iyo qadarkeena waxa uu leeyahay inaan intaan aqoonsanaan rabnaano warkaas iyo kaasaa fiican laakiin kari karnaa maanta kana kari karnaayo yaanan kaasoo ama aan kasoo gudubnay ama aan noo fiicnayn yaanan aadinay kana fiican oo bili kaa fiican ugu sii xiraya aan samaynay intaan rabnaa aan socotaa shaqada kalsoon qabaa in wax badanka Soomaalidu ay isku raacsan yihiin oo isla ogolaaday inay soo bixi doonaan 2016 lagu dhaqmi doonaa hadii alla yeelay أدول ما استعمل عونه ورشة وجبجبين أنا جوجل سكون تجين كل جرا أنت توتو سكتين كبر حول مشارح ما كانوا ما بقارن بهرا مشاهي لا بكون يلحي طبعا إن المرشح حيوان شاعي ما قارنين لكن محاربة سؤال هل مد أنا آدي عبدين عن آدي عبدين يا ما تضبط سوماليا كنحتاجن ضبط وحي أرجو من تود وحي هاي وقت يوضع ماضي هل قضي هل قفل ما جاري كريو dawladdu way sheegtay in la gaari karin duruufaha dalka yaalan oo ay ka muuqdaan 2 sano hal lagu daro 2 sano kadib hal qof iyo hal cod hal loo istaago anigana waan cadeey waxaan dhahay ma qaba sidaa aniga ma gaan ka madaxweynahan yani qaanuun ma waxaan ka hadlayaa laakiin anigu si dadka qabaan ka mid ah dad badan qabo ilamida war hadii aan hal cod iyo hal aanan gaari karin inaan kursiimadan horaan soo aragnay inay dib badan tahay ceelaan badan iyo qaladaad badan iyo waxyaabo badan ay leedahay qaladaadka sharcan galnayay inaan gelin macna beelinay maanta wixii aan qortan inta ka tashano isku raacno caafimaad dad waxaan rabaa aniga dadka Soomaaliyeed hadii shalay oo 35 oo ay baarlamaanka noo qintay waxaan rabaa aniga dadku manaan gaariyo Soomaaliyeed inay keenaan xoolaha ka qayb qaataan dowladda dadka imaanayso kumanaankaas dadka talayahay haday aniga iibtaan inaan markale si joogan inaan joogo haddaanay garan oo qofka oo caalami jaamaca leeyahay asuuliya caatooyinka qortaa waxaan raali ugu ahay afkaas kale aan kuuji oo maxamed diidanahay waa weli la jaarin waxa la 2 sano iska waxayna marjinay mar labaad sano noqday aligu tama marka la fiiriyo madaxweyne Cabdullaahi Sharif soo noqday kulli ما لبداdan sana isaga darsitu iska joogtida la yiraahdo anaguna waxaan rabaa waan tagayaa waqti la isii awoodo fursada la isii waxay ku egtahay bisha September 10keeda 2016 maalintaas ama aniga oo mandate cusub wata aan joogo ama aan baxo raaliya dacwo iyo dadka maqab inaan powerka ka raaracsan daraf intaan uga dhago fuqayaan ilaa maya la yeelay dhaqan cusub iyo wado cusub inaan jideeyaan rabaa waana sidaas warashax waan ahay laakiin sidaas aan ku ahay madaxweyne aad ma astay inkastoo ay jiraan arrimo badan oo dadka Soomaaliyeed digahooda ku soo noqday oo arrimo badan dadka Soomaaliyeed la wadaagto waxa jira urur la yiraahdo dawlad jadiid oo lagu tiriyo madaxweynuhu inuu ka tirsan yahay arrintaas horta madaxweyne dad badan ku subxaan arrintaas la wada maxay nagasi waa santaay arrinta xawaay arrintaasi waa arrin qarsoon ma dadka damay taala araba hadda ka hor waa cadeynta in cadeeyaan rabaa anigu ka madaxweynaha jamhuuriyadda ka xasan sheekh ahaan urur
diineed weligeyna kamid noqonin maantana kamid maahay caawa aan kula hadlayo urur diineed aan simbasi gaara u hayo anigu kusanayo دم جديد الإصلاح الشيخ أهل السنة والجماعة اتحاد اعتصام محاكم هذا أنصار السنن هذا اندلس وحاجة تاعي محوهاي انتاسو مقعو محاكم هذا ururo diineed sheeganaya ay mid xoogan iyo mid tabaryar iyo mid siyaasad ku jira iyo mid aan ku jirin intaba way leeyihiin afkaar iyo mabaadi iyo doctrine kala duwan ayay qabaan oo badankeeduna la dhihi karo waa doctrine siyaasad oo mid siyaasad siyaasadda casriga hadday tahay iyo mid dadka in lagu maamulo lagu manipulate gareeyo loogu talagalay hadday tahayba mana xuma dad inta isku tagay fikir way qabi karaan nidaamka iyo principleska dimuqraadiyadda ka mid tahay laakiin waxaan ku sheegayaa sooyaal la dhaqanaa jiro oo dowladnimada Soomaaliya ee waayaanba dadka Soomaalida ah taariikhda markaad fiiriso waxyaabaha dowladda kacaanka ee dalkan ku soo kordhisay oo ilaa maanta marba midab yeelanayo ee jiray ka mid tahay dowladda kacaanka dadkeena da'deeda aniga inta iga weyn soo joogtay way aragga u ah marka qofka fikirkiisa inuu dhigto oo aago inuu yiraahdo waxaan waa laga rooyaa waxaa la dhihi jiray waa kacaandiid waa dib u socod waa minshaar waa magaciisa la dhihi jiray taasoo kalmadahaas oo marka qaarkood qofka dil xataa inuu lagu xukumo gaarsiin jirtay dadka Soomaaliyeed marka waxaa la gaarsiinaa inay fikir kasta qabaan inay aamusaan oo aanay hadlin oo haddii ay hadlaan qaanadaas ama lagu dil socod waa ama lagu waa kacaandiid ama lagu qofka inuu iska aamuso oo fikirkiisa uu la aamuso waa laga soo gudbay burburkii markuu dhacay khaasatan anaga dadkeena magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku noolaa haddana waa sulx iyo waa manifesto iyo waa iyo magacyo sameeyay oo qofka hadduu fikirkiisa siiba tagaba anad la gelinayo oo hore adiga iyo sulx ah kii manifesto ah kii manifesto ah naga aamusleeya qof aan lagu dhin manifesto iyo sulx ayaan dhin oo aamusaya waa laga soo gudbay waa dadkaay waxaan noo beddelay waa murtad iyo maxaa argagaxiso iyo waa magaciis mar walba dadka wax loo abuurayaa in akaartooda si xor ay banaanka u yimaadaan ayaa la diidayaa waxaad xasuusataa dowladihii soo dhaafay dowladii Cabdullaahi Yuusuf Allah u naxariiste waxaa la dhihi jiray niman aaran jaan la yiraahdaa ku wareegsan oo nimankaas dalka talidiisa ayaa wax qaribayo oo ku cayaarayo oo qofkay rabaan eegayo qofkay rabaan keenayo oo dowladnimadu ay hayso madaxweynuhuna ayaga ku wareegsan oo muxuu ahay waxaana ayagu ogeyn dalka kama socdaan la dhihi jiray dowladii Sheekh Shariif markii uu timid niman aal sheekh la yiraahdo oo dalka waa ayagu muxuu ahay tusbaxa u hayo oo wasiirkay rabaan eriyay rabaan keenaa yaa jooga xasan sheekh markuu yimid niman dam jadiid marka anigu waxaan qabaa waxaan waa waxaasi qaacidadaas oo jireenka ahayd la socotaa war anagu urur diineed kana tirsan urur aan jecelno sababta u hayna malaha jamhuuriyadda Soomaaliya dhan ayaa madaxweyne iga dhigatay koox yar aragtideed iyo mabaadideed inaan dhex fadhiiso aqligeyga aniga waa ka weeyahay mana ogolaa karo laakiin la demonize gareeyo madaxweynaha iyo dadka u dhow iyo dadka la shaqeeya iyo kuwa uu kalsoonida ku qabo iyo kuwa uu adeegsada mar walba in shayaadiin laga dhigaahay sidaasay u soo jiri jirtay midda maanta la sheegayna waa midaas dalkani qabiilna ma qabsan karo koox yaroo nooc ah oo xeydxeydana ma qabsan karto Soomaaliya laakiin waa jahwarinta ummadda waa ka mid tahay dam jadiid wax la yiraahdo waa laga yaabaa kooxaha magacaas la way jiraan ku dam qadiimi dam jadiid iyo dam cariif iyo waxaan waa magacyada la bixinayo dam akhdar kuwa la yiraahdo oo qorada muxuu ahay la muxuu ay qayisho loo bixiyo lafsideeda waa jiraan oo koox ayaga lafsideeda gooni u taagan dadka waa qaanadahaas la kala gelinayaa laakiin dalkani tala koox u gaar ay leedahay meel jooga ay jiraan laakiin madaxweyne kasta dad shaqeeya oo ka agdhow oo maxaan ku raadayay shaqada la wado oo shaqada u fududeeya oo way jiraan wayna soo jireen wayna jirayaan dabcan laakiin waxaan ku leeyahay dawlad niman dam jadiid ay leeyihiin ama ay lahaan karaan dalkan ka mid jirto dalkan dawlad Soomaaliyeed qabaa'ilka Soomaalida oo dhan ay ku jiraan dadka Soomaalida intellectualiska ah oo hadda dawladani dadka diaspora ka yimiday muddo dheer wadanka ka maqnaay cid uga badan ma laha ayagaaba u badan ba marka ma qabo muxuu ahay in ayaguna ay dibadda nooga keeneen
marka walaalkay waxaan rabaa inaan kusoo koobo afkaarahaasi waa afkaarihii maanta iyaan ka hadlayo oo dadka in lagu celiyo oo lagu jahawareeriyo oo frustrationkoodii confusionka lagu sii kordhiyo loogu talagalay laakiin